الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalaha ina muunadeeyey ee ina maamusay ugu horeeyaan wasiirada inagala soo qayb galay xafladan hogaaminaya wasiirka diinta iyo waqaafta macaali sheekh Razaaq Hussein Ali Al-Albani xafidahum Allah jamiican, mashaayikhda walaalkeen Sheekh Ahmadiid, xildhibaanada, odayaasha iyo dhammaan walaalaha horteeda fadhiya. ilaahay mahadnaqiisa dabadeed waan wada mahadnaqaya. aniga waxay la gudboonuun martida ina qiimaysay anigoo magaciina ku hadlaaya inaan u mahadnaqo. waxay tusinaysaa madaxda iyo mashaayikhda iyo marti sharafka qiimaha leh intaa leegay nagala soo qayb gashay. haddaynu isnaano kuwa ka badan dalbadana ayaynu soo wada ajiibi lahaayeen sida madaxdeennu ay u qiimaynayso diinta ilaahay subxaana wa tacaala, ilaahay kitaabkiisa, sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam. way yar tahay dunida maanta dal islaamiya mid kaleba intaasoo madaxii inay masaajid intay isugu yimaadaan ka qayb galaan oo arday dhammaysay kutub ka mida kutubta shareecada xadiidkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam inay farxadda la qaybsadaan. waxaase nasiib darro ah oo ayaan darro ah dad manaabirtaa saaran oo culimo loo yaqaanaa, madaxdaa aad arkaysee mid kastoo hadlaa cilmiga shareecada aqoonta u leeyahay ay ka muuqanayso hadalkiisa inay gaalaysiiyaan qaarkood. maamulka riddada, madaxda gaalada waa kufraanu nicma, nicmadii ilaahay laga gaaloobay wey. waa caqiide xumo, waa caqiidada gaalaysiinta muslimiintu kuwa ay la dagaalamayso diintu wey. qur-aankeennu la dagaalamo, xadiidka rasuulkeenna uu la dagaalamaya calayhi salaatu wasalaam. caqiidadii ahlu sunna waljamaaca, caqiidatu salaf saalix aynu ku baranay meeqaamka ay dhigtay dadka muslimiinta in la iska gaalaysiiyo. waxaan da'yartaa u dardaarmayaa marka ee ardayda, fikirkaasi waa fikir waqti hore dhashay. saxaabadii rasuulka iyo cali bni abi aalib bay qaarkood gaalaysiinayeen. ninkaa cali bni abi aalib ku janno tegayey ma madaxda maanta joogtuu biyo u kabanaya? uma kabanayo. waa cali bni abi aalib oo isagoo adduunyada korkeeda saaran oo nool janno loogu bushaareeyey baa midaan isagu meel laba haysan haabnaba ya uu leeyahay anaa jannada ku tegaya isaga inaan dilo. hadda wuxuu ogyahay in jannada loogu bushaareeyey. markii cali la dilay gabayadii khawaarijtu tirisay waxaa ka mid ah: yaa laha min darbati taqiyin maa araada biha ilaa liyanaala min di lcarshi ridwaana inii adkuruhu yowma faaxsibuhu aw falbariyati cinda allahi miisaana. darbadii cali ku dhacday buu leeyahy nin alla ka cabsi badan baa cali ku dhuftay uu ilaahay agtiisa raalli ahaansha kaga doonaya. markaan xuso in magaciisa soo qaado waxaan u arkaa inuu yahay ilaahay agtiisa ka ugu miisaanka xasanaad ka weyn leh. xataa abubakar buu ka horeeya iyo ambiyada uu ka horreysiiyey. awfa albariya cinda allahi miisaana. waa caqiidadaa xun dad xambaaray maanta way joogaan, way buuxaan. kuwa la rabo inay dadka يعني waxa weeye u bayaamiyaan xaqiiqadoodu waa idinka, waa inaga, waa cidda xamalatu lkitaab wasunna, xamalatu shariica, dadka shareecada xambaarsan wey. jihaadku af iyo adin iyo qalin intaba u noqdaa. jihaadka ugu weyni waa kala la jihaado afkaarta qaldan, cibaado xumida, caqiida xumida, camal xumida. inta uu qof caalimi masaajid fadhiyo ee dadka xaqa uu bayaaminayo baadilkana uu uga digayo jihaad buu ku sugay. jihaad buu ku sugay. waqtiyada qaar bay culimadu cilmiga faafintiisa ka fadilan ka horreysiiyeen jihaadka seefta loo qaato.
marka waxa aan anigu kelmadeyda uun ku koobayaa waaqaca maanta taagan aawadeed in afkaarta noocaas la dagaalamo oo afka lagula dagaalamo oo qalinka lagula dagaalamo oo dadka loo bayaamiyo oo aan laga baqan ninka baadilka yani waxa weeye ku dhiiran ki xaq hayinu ka waabta ma hayl hadii la doodana adaa ka garhelaya hadii la dirarana adaa ka guuleysanay wa ilaahay baa ku garab taagan subhanahu wa ta'ala wa qul jaa al-haqq wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa bal naqdhifu bil-haqq 'ala al-batil fayadmaghu fa idha huwa zahiq xaqa baadilka marka lagu dhufto baadilku uu zuulaa xaqa gacan sareeya marka xaqa sheegidiisa aan ku dhiirano cadeyntiisa aan ku dhiirano baadilka zuulintiisa aan ku dhiirano uga digida dadka aynu uga digana aynu ku dhiirano dadka aqeedada saxda iyo amalka suuban u gudbintiisa aan u sabirno ku dhiirano nafiya maal baan ku bixino waxa ilaahay subhanahu wa ta'ala aan uga bariyaa mashaayikhda iyo madaxda wasiirada halka ay nagala soo qayb galay intayna la fadhiyeen waxay ku jireen xaq xalqad dikriye ilaahay inuu miisaanka xasanaadka u saaro oo ku abaal mariyo maalinta qofku uu u baahan yahay amalka wanaagsan ilaahay inuu ku abaal mariyo inuu ka dhigo madax la mahadiyo oo dadkooda iyo dalkooda iyo diintoodaba u hiiliya oo waxa weeye markaas taageero Allah ka dhigo sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira sheekhu iyo wasiiradu waxay naga codsadeen in afarta sunan la dhameystiro oo labadii saxiixaynka la raaciyo oo maato situus ay u dhameystirmaan ilaahay waxaan ka bariyaa subhanahu wa ta'ala inuu i waafajiyo ina sahlo umrigana ii barakeeyo intaan khatimiyo kutubta insha Allah ta'ala labada saxiixaynkana insha Allah waan raacinayna ilaahay damkiis ilaahay noo fudaydiyo kuwii hore ba iyagana noo fudin doono jazakumullahu khayr